وقت عقل بيني وحسن مكان كل واحد الوقت لما يروح يقعد يحسب زون كده سنين الواقع سنه waxaan ka hadlayna xagga dambe marka xagga hogaaminta ila hogaamin baa wax kala hagta tan kale waxa qabyaalada oo ayadana qayrka naga reebta qabyaalada qayrka dadkana la midka naga reebta tan kale waxa weeyaan sareynta sharciga oo noqotay sareynta madaxda hadda goor mar ku tabanaa inaan hayo maleynay fi sirri macallin loo dhigay sharciga dhan bilaaway waa the king is the law in kafa kingdom anaga nafteena sidaas u banaayde haddaad gudoomiyada aad u magacaawda degmo marka uu rays wuxuu bilaabayaa inuu jifidiisa hooso inuu horta asaga ninkaas awoodiista uu qabalay u sameeyo sharciga muwaafaqsan tahay shuruudo ma leedahay waxaas soo dhawaayo marka sareynta sharciga oo noqotay sareynta madaxda kuwan insha Allah sidaas ma noqonayeen kuwana hadda noo joog inay saas macna ka gudaan wadadaas arjeynana anagana waa inaan caawin qodobka kale bulshada Soomaalida oo u abaabulneen qaab islaam u sameeysanin in ay xumaantana diidda ay ka halganta samaantana ay taageerta qaab ismeedkii oo hadda la lahaa ururada rayidka noqda iyo si kala noqotaaba qaab ismeedkii ma laha umana diyaarsanin wacyigeedana uu nagu liitaa marka problem kala aan u arkaa dad kale oo khilaafsan way maani karaan tan kale musuqmaasuq baahsan waa dhibaatada haysata kale baaladan hal wax badan aan ka dhaxaya jirto laakiin wax aan xogo ka qorqoray baa jirtee laakiin mid baan marka hore soo hormarinaya si haday kale waxarayaan kuwa aan xogtooda la soo aruurin ay u haraan marka musuqmaasuq baahsan asagana dhib kale oo hayso waayo sababta aan xukunku iskugu laayna nafteeda musuqmaasuqa ayaa inuu waqti fog qaata waa u banaanta ana hadda kuwan xataa research kuma sameyn laakiin waxaan dhahay mar dhawata qaarna inay dadkan qaataan maanta noqotay maalin kale noqotaaba qaarna anaga aan sii wadnay noqon insha Allah taala marka habad u horeysa soo qaadanaysa waxa waaya saamaynta midda wax yaraan ka dhigi doona saamaynta taariikhdeena horusa historical context waxa burburka siyaasadeed ee Soomaaliya mid dhaqaale mid siyaasadeed mid maartay dhaqan si kasta loo burburay 60 70 Soomaali sida ay ogtihiin haddana maanta sidaan marka burburka asaga ahaa si toos ah ayuu anaga noo saameeyay marka inaan iska dhigtirno ma war maxaa meesha ka dhacay waa iscunbisana waa la iscunay dadka iscunay waxa jooga maxay ku hareen intay joogaan xagana way joogaan waxaas marka waxa ayade inaan lagu wada hadlo oo seen wax yeelnaa la yiraahdaa oo maartay la dhayade waa waxyaabaha aan ka hadlay taariikh marka saameyntii burburka Soomaaliya waa ka hadlay tan kale waqtigii burburka xaq ahayn uu dhacay Itoobiya ay dawladda cusub oo IPRDF ka dhalatay maskaxda burburku anaga wadana meesha ayaa maartay aan dawlad dhisnay waa waqtiina malayna imis ururaya xasan yaamir طبعا بوصله طبعا افرمه لحد طبعا الرام بس باي هذا واحد واحد يسكون عليه يسكون هذا وقت سيدل اسمه بأرنت سليم مركو رتاس أنا حلم اللي منه لا يا أبو واحد علمك سومالي أنا حتى يقول مين فيه أوكي مركا ماشي أصل مركا مين كلا رجع يا نقشوا الرسول هالجميع يا اللي هنا مقص سومالي قلبت أون اللف سومالي أبو الرو أيان له يعني سومالي مركا بتتم أي ترى متقنا ده كان سوريا بقارئ أيان له بيجوا حل يريد مركا رجع جرتة هل كان وحنا اسكت إنه عن دولة سميسم الرب ضمير كليا عين هذا وحين وعين نقطتين وقت بدن اللي ميرد هل كاس وقت هذا نجوي عن نقصته يعني وقت يعني نقول له ما يده ووقت يعني هل كاس نقول له ما وحكى له مارت الربا يعني أري أنا سامريا جرى قرال كيجي في الأول سيمو متقن سيمو ريودي يا جماعة نقولين قارب سيمو مناو ودين سيد بيجي صوّر أيام ميل بعد أنتو قلا أيام بيجي صوّر عند ميل هذا اللي هني قارب الربا سيمو بيجي قارن أنت أروريون أو أنا لف يرهدين أروريون سومالي قلبي حسن جربت أو بانا يبقى كذا قار ورناس وطن ممكن بنان تلاقي جي كوا ده هناك ممكن سووا لف بعد ساس وجدنا ممكن جدنا يحيى ده يا كان قبله بجرون بكا قال مركا يعني أروريون نفتح وقت جهوري رانا قال
jahwareer waa waqtigii transition waxaan ka hadlaya jahwareer baa na yara galay ee waqtigaa naga lumay waa waqtigaa naga lumay yaro soco sheekh waxaa kaloo arrin kaloo ka shanqarin rabaa jirta mar wadadaaba ka shanqariye arrin kaloo soomaali ay iska dhagatiraysa in badan ayaa jirta waxaa jirta etoobiya waa 80 iyo dhowr qowmiyadood annaka moogihi inta kale soomaalimada meesha imaada ayakina etoobiya ay noqonayiin annakana soomaali ahaana xagaa noola yarriixaya ya waa ogtihiin macnaha waa wax badan oo ku sharaxi kara waa jirta beriyaa markii maaragtay la sameynayay referendumka oromadii annaga ani federation ku jir dadka waxa sameynaan ku jiro mogta niminaan saaxiibe nigi baabili meelahan joogi oo berigaas oromadaba maarata soomaalida ka jeclaa ayaa waxaan ku yidhi maxaad ku dhacay codka noo siin weysaan de inaanteen dalteen ku arilamnay nisisawaj minwadi masalaj dilko inaanteen naga bitgana tarus ya haddaa goodiin aan ka baqaynaa moogi idinkaadi dooran lahayn laakiin inaad dhulka la goodiin aan ka baqaynaa manaa marka etoobiya markii xagga la tagaa gees bay isku aruurin waxa yaraan inuu waqtigii intaan ka cabsanaa laakiin waxyaaba ay qabsadayaan idin sheega jaamacadda Addis Ababa University 4 sano ardayaan isla dhiganayeen markaan qalin jibinayeen oo ismac salaameynay wuxuu yiri banaati bad anna sajinal goorma wadankaaga aadaysa waa ninka 4 sano wax isla barnay waraani kalik sanadaan ahay waxa sheeko kale macna koobada hadda u soo bilaaba koob intaas ay qabsatay maalin aan dhawr dhowr laga joogo ayaan taxi galay laba wiil oo Oromo oo Muslim ah ayaan mar salaam alaykum waa taxi aan gal markaas ay yiraahdeen intii waa un Soomaaliya hormatu min daanano ayid macna wax oo Muslim u yar heelina yani dhibkii ma laga baxay hadda say yahay war inay Ethiopia Soomaaliya ninko Ethiopia mana Soomaaliya Ethiopia yani xagaas ni markaas ay ugu wujiga la markaas gin እናንተ ትክክለኛ ኢትዮጵያዊ ነው ማለት ነው ናችሁ እንዴ ማውዳ ጋር ላይ እናንተ እኮ እንገነጠላለን ምናምን ስለምትሉ ረዛው አንጉር አዲስ ኦሮሞት ይታ እኔ ሆርቱ ሃንጋራና ያው ጉር ስዳ ኦሮሞ ኦ ኢናይ ጉአን መብዱ ይህ አያን ጋራና annagana hal urur ayaan leenahay oo inuu go mabdiisiya ina agu itaanka saydinku ma dheeraysan saddex urur waa idin kuul annagana waa hal وأمزح مرك هذانا مالك سوي هذا أنا عبد فرحان واكن مرات تاكسي أنقلنا إلى أمريكا أمحاري أنكو هالليني أرنت مرت عفرت إياه وأنا جنوا بحس أيا ماشي جبت لي على الحري وحيابها صار لها الزينة مثل وربا هلا يا ملايين مركز كي تاكسي جنوا يدور بقى Somalia بقى Somalia كلهم مقار متعلق نصرة وتاكسي منك مولد مكت وعملت يا أواش كاسات يمكن يجري وقت وطبعا العريق عتالة Somalia بقى كلهم مقار متعلق نصرة كل أي أمريكيز لا بتضبط قهر نازريت أي أوضيال أوروبي Somalia شر اللي بقبتيه أفايين كعينكي أوروبا قبل ما غنى وافيين كعينكي أي أوضيال شو أبيتري سدات كمل أيام دجال كل جرنا أنا قاعد أنا أوروبي هذانا سدات كمل تقرأ موضوع انتكار دجال كل جرنا وحبنا وكمان لا أنا هذا أوضيال تهين مين ولا بدقني سها حلستا انت سانو غاي مكت الان بدي انت سانو غاي وان كو دايرا اورمي مالين دوت اوفيشالي سدت كلنا دغال كل جراينا دايت مكت انا حتى هدان كلنا بدي سنله ودن دغال كو قارن ولا بده او عفري اورمسا marka sideed mid ka dagaal ku qaaday officially sheegtay maxay dhigaysaa kullin gaarmad alat waa marka waa ugu tuma dagaal taalin kale marka aan jeeda war Ethiopia bisaanay loo aragtaada ninkaana shalay ugu laa maxay bixi bias unconscious bias ay naga qabtaa Ethiopia mana mid walba waa iska kacaabo adiga mana inaad balay tahay lagu arko intaas kaliya ma marka arinta kuma ka intaas annaga nafteena ilma yaridka hatta soo madhan waraa amharka ku arsiina soo nafteen hadaa marka meesha hayla ani marka waxaan leeyahay waxa ma sama ida jira okay laakiin Ethiopia inaan qayb ka noqono oo debate meesha ku socdo dooda inaan qayb ka noqono iyo inaan si kale u tashano wax ka dhacay mal hadda waa la aragtay Soomaali
يعني متعلم يعني انت يسميه ضغط مركي اللي هو شو جزء صار كده ضروري وقت جسم ضروري يعني اسمه واحد كده سيستم حاجه انا يعني السيستم اللي شغال فيه شغال وقت ده لكن شغال فيه شغال السيستم اللي لا يقدر مش شغال تلقى حياته وقت يغفر مفاتيح فيها من الصومال وبرشا حسب اللي جوه كل السياسيين وبرشا جوه حسب اللي هو بالعروض كده طب ده ما يبقاش بالمليون ومنهم مدام دايما شغالين شغالين حفيز كان بيجي مساعد زي يوم كده بيجي بس بس هذا القرار والكلام مرة يعني فجأة متيشرة وحا عايز سميان فيزيد عيلات انت عزيزت عن شيء لا وقتك معناها وقت نصر عن انت ايضا هذا الموضوع كسر أولا ما أعرف عنه الدعمات قبيالات قبيالات كل الحيوانات تنبوها يا بنت لكن ما دول الأحمر هكذا دليل you know ضغطك كل اجتماع عنه كل الكبار أي أولا من إيه يحاول في حماية وقع على يا عدالة الحماية كيف عدالة الحماية وقلت وقع وإحنا عدالة إسرائيل عدالة إيه كلام كده أنا أقول لك صواب ويا الله أنا you know قبيلة أنا سكتي في حماية وخطأ السكت قبيلة كده سعينا يبقى كده صواب ده يعني هذا إيه هو قبيلة الحماية هو كده صواب وأنا معنا واحد ما يقول حتى ده مفيش جواب معنا واحد لا وأنا معنا أرمت كنت في التيم واحد ما يسكون لي وأنا سيادة ده أنا في السكوت ولا بل لكن واحد يسكون لي أنا أصور درس وأنا واحد بيعمل